asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. daawadayaal kusoo dhowaada muuqaal cusub. waa barnaamijkeena xogaha ciyaaraha oo aad ka daawataan janaalka bartamaha mee. haddii ay tahay markii kugu horreysay booqashadaada halkan, fadlan sabskribe saar, rukumo gambalaylka, laag inagu dhiirigeli, u sheergaree, lana wadaag asxaabtaada. qaybta faallada kommentiga wax walba ee fikirkaaga inagula wadaag. dabcan qodobo xiiso badan ayaad ku daawan doontaan oo ay ka mid yihiin Sanchez oo kalsooni ka muujiyay inay ka guulaysan karaan Barcelona kulamada UEFA Champions League. sidoo kale Michael Owen oo ka aragti dhiibtay qalaanshiya soo kala dhex galay xidigaha Islaamka ee naadiga Liverpool, Mohamed Salah iyo Sadio Mane. Rashford oo si cad u sheegay sida ay kaga go'an tahay inuu Harry Kane kaga saramaro xulka qaranka Britain. Lionel Messi igama codsanin inaan la soo saxiixdo Neymar. madaxweynaha kooxda Barca ayaa arrinkan ka hadlaya. sidoo kale Alisson Becker, Ederson iyo Marc-Andre ter Stegen yaa u qalma ku guulaysiga abaalmarinta goolahayaha sanadka 2019. arrinkan waxaa ka jawaab celinaya mid ka mid ah halyeeyada kubadda cagta Islaamka iyo Kiristaanka. xidigaha kubadda cagta caanka ka ah ee aadka ugu adag diimaha ay haystaan ayaa sidoo kale barnaamijka ku daawan doontaan. PSG oo iska diiday dalabba ku aadan Neymar Jr oo ay ka heshay dhigeeda Juventus. maxaa ay tahay sababta? sidoo kale barnaamijka ayaad ku daawan doontaan. Dani Ceballos oo aysan u badnayn inuu ku sii nagaado naadiga The Gunners. maxaa ay tahay sababta? sidoo kale barnaamijka ayaad ku daawan doontaan. mar kale isku soo noqo duuca daawada. haddii ay tahay markii kugu horreysay booqashadaada halkan, fadlan subscribe saar, rukumo gambaleelka, la garay fiidiyowga, la wadaaga asxaabtaada, qaybta faallada inoogu reeb wax walba ee fikirkaaga ah. mahadsanid. Marco Rashford oo si cad u sheegay in sida ay kaga go'an tahay inuu Harry Kane kaga saramaro xulka qaranka Ingiriiska ee Britain. waryahanka kooxda Manchester United Marco Rashford ayaa doonayay inuu ka saramaro rikoorka gool-dhalineed Harry Kane ee xulka qaranka Britain ama Ingiriiska. dhinaca kale Marco Rashford ayaa si cad u sheegay inuu doonayo inuu ku hogaamiyo xulkiisa saddexda libaax inay u soo baxaan tartanka Euro 2020. xulka qaranka England ayaa maanta oo Sabti ah isku diyaarinaya kulanka ay wajihi doonaan xulka qaranka Bulgaria ee ka tirsan isreebreebka tartanka Euro 2020 ka oo ka dhici doona garoonka Wembley Stadium. xulka qaranka Three Lions ayaa kaga warqaba inay haysato weeraryahanno bahal ah oo ay ka mid yihiin Marco Rashford, Harry Kane, lagu daray xidiga lagu magacaabo Raheem Sterling. Marco Rashford ayaan dhalin wax gool ah tan iyo labadii gool uu ka dhaliyay kooxda Chelsea kulankii ay kaga daahfurteen horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan, laakiin waxa uu dhaliyay 4 gool 7 kulan ee ugu dambeysay uu ka soo muuqdo xulka qaranka Ingiriiska. waxa uuna doonayaa inuu halkiisa ka sii wato gool dhalinta xulka saddexda libaax. haddaba wargeyska Daily Mail ee dalka Britain ka soo baxa ayaa soo xigtay waraysi uu bixiyay daa'irka Man U Marco Rashford, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa: Harry Kane waa mid ka mid ah weeraryahanada ugu fiican ee dhanka soo afjaridda kubadda aan ka dhinac ciyaaro xilli kasta oo aan tababar wada qaadano. waxa aan doonayaa in aana ku dhowaado rikoorkiisa intaa suurtagalka ah, ayuu yiri Rashford. haddii uu dhaliyo 6 gool, waxaan rabaa in aan dhaliyo isla goolasha oo kale. haddii uu dhaliyo 7 gool, waxaan rabaa in aan dhaliyo 8 gool. waxyaabahan yaryar ma arkaan taageerayaasha. inkastoo aan tartan ugu jiro booska isku mid ah, haddana midkeen kan kale ayuu horay u sii riixaa. waxa ugu muhiimsan ayaa ah in aana lagu raaxaysto jawigeena, ayuu yiri Marco Rashford oo ka hadlayay amuurta ku aadan ciyaaryahanka ayaa isku xulka ka soo jeedaan, balse kooxda Tottenham u ciyaaray Harry Kane. dhanka kale Daniel Ceballos oo aysan u badnayn inuu ku sii nagaado naadiga The Gunners ee Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay u badan tahay inaysan helin fursad ay kula saxiixato heshiis joogto ah xidiga qadka dhexe ee Real Madrid Dani Ceballos dhamaadka xilli ciyaareedka 2019-2020.
23 sano jirkan ayaa ku qaadan doona intaa ka dhiman xilli ciyaareedkan amaah uu ku joogo kooxda Ghana kadib markii uu yimid garoonka Emirates Stadium dhammaadka dabayaaqadii bishii July. xidiga heerka caalami ee dalka Spain ayaa loo diiwaangeliyay 2 caawin oo Premier League tan iyo bilowgii xilli ciyaareedkan, taa oo lagu tilmaamay bilow wanaagsan isagoo ka soo muuqday 4 kulan ee ay ciyaartay kooxda kubadda cagta Gunners. si kastaba ha ahaatee, sida ay sheegayaan warar ka soo baxaya Spain, Ceballos ay u badan tahay inuusan ku sii nagaan doonin kooxda ka dhisan Ingiriiska dhammaadka xilli ciyaareedka, iyadoo madaxweynaha Los Blancos Florentino Perez uu doonayo ciyaaryahanka qadka dhexe inuu ku soo laabto gegada Bernabeu xilli ciyaareedka soo socda. Ceballos ayaa dhaliyay 5 gool 56 kulan oo u saftay naadiga Madrid tan iyo markii uu kaga soo biray dhigeeda Real Betis sanadkii 2017, waxaana loo arkaa mid ka mid ah xidigaha mustaqbalka kule kubadda cagta yeelkadeeda. inkastoo kooxda Real Madrid ay ku guuldareysatay inay la soo saxiixato beddelka suurtagalka ah oo ku saabsan Paul Pogba amaba Bruno Fernandes, waxa ay taasi meesha ka saaraysaa in Arsenal ay si sahlan ku saxiixan karto Ceballos weliba si joogto ah, inkastoo ay wax weliba isbedeli karaan amaba ay dhici karaan. dhanka kale, Paris Saint-Germain oo iska diiday dalab ku aadan Neymar Jr oo ay ka heshay kooxda kubadda cagta Juventus. naadiga Paris Saint-Germain ayaa lagu soo waramayaa inay diiday dalab uga yimid kooxda Juventus oo ku aadan saxiixa Neymar, isla markaana uu ku lug lahaa ciyaaryahanka reer Argentina Pablo Dybala suuqa xagaagan. Neymar oo ah xidiga ugu qaalisan kubadda cagta dhanka suuqa ka oo PSG ugu biray lacag rikoor oo gaaraya 198 milyan oo gini, haddii dhanka kale loo dhigo waa 222 milyan oo euro. waxa uu kooxda PSG ku biray sanadii 2017 ayaa si xamaasad leh u qurxiyay hadalhaynta xiise geliyay kooxo badan kadib markii uu sheegay inuu ka dhaqaaqi doono gegada Parc des Princes ee dalkaasi France inta uu furnaa suuqii kala iibsiga ee dhowaan albaabada la isugu dhuftay. kooxdiisii hore ee Barcelona waxa ay si adag u sheegeen in ay dhammaystiri doonaan heshiiska ciyaaryahanka reer Brazil, laakiin ma jirin wax tallaabo ah oo laga qaaday iyadoo PSG ay diiday inay ku soo iibiso 200 milyan oo gini. dhanka kale, Alisson Becker, Ederson iyo Ter Stegen yaa u qalma ku guuleysiga abaalmarinta goolhayaha sanadka 2019-2020. saddexda goolhaya Alisson Becker, Ederson iyo Ter Stegen ayaa u sharaxan goolhayaha sanadka 2019 abaalmarinta ay bixiso xiriirka kubadda cagta adduunida ee FIFA. goolhayaha kooxda Man City ayaa qirtay in ninka ay isku wadanka yihiin Alisson Becker uu yahay goolhayaha ugu fiican adduunka. Alisson Becker ayaa si wanaagsan ula shaqeeyay kooxda Liverpool xilli ciyaareedkii hore, isagoo si weyn uga qayb galay in Reds ay ku guulaysato koobka Champions League, waxaana dhowaan loo caleemo saaray abaalmarinta goolhayihii ugu fiicnaa tartanka xilli ciyaareedkii tegey. sidoo kale, Ederson waxa uu door muhiima ka ciyaaray guulihii kooxda Manchester City ee xilli ciyaareedkii la soo dhaafay. waxa uu shabaqiisa ilaashaday 20 kulan oo horyaalka Premier League, isagoo hal kulan ka badan ninka ay isku wadanka yihiin Alisson Becker. inkastoo labada kooxood ay ku ciyaaraan tartan xoogan ka dhex jiro, haddana tani ma aysan ka hor istaagin Ederson inuu qirto sida ugu qalmo saaxiibkiisa ay isku wadanka yihiin Alisson Becker ku guuleysiga abaalmarinta. Ederson ayaa waraysi uu bixiyay wargeyska Mirror ee dalka Ingiriiska waxa uu ku sheegay, waxaan u malaynayaa in aan nahay saddexda goolhaye ugu fiican adduunka, laakiin waxaan arkaa in Alisson uu tallaabo naga horeeyo. waxa uu si fiican ugu dagaalamay horyaalka Premier League, waxa uuna ku guuleystay Champions League, UEFA Super Cup, sidoo kale waxa uu ku guuleystay tartanka Copa America. sidaas darteed waxa aan qabaa in kan guuleysta loo caleemo saari doono abaalmarinta
waana ku faraxsanahay in laba gool haya ee reer Brazil ah ay gaareen heerka ceenkan oo kala farxad ayay ii tahay ayuu hadalkiisa ku soo afmeeray golayaha kooxda Manchester City ee Ederson. dhanka kale madaxweynaha Barcelona ayaa ka hadlay alimar la xiriira Neymar iyo sidoo kale Messi xaaladiisa. madaxweynaha kooxda Barcelona Jose Maria Bartomeu ayaa si qoto dheer ah kaga hadlay kiiska heshiiska ay ku fashilmeen Neymar Jr. Jose Maria Bartomeu ayaa si cad u sheegay in kabtanka kooxda Barcelona Leo Messi uusan ka codsanin saxiixa cadig reer Brazil ee Neymar Jr. sida lagu sheegay warbaahinta. madaxweynaha kooxda Barcelona ayaa waraysi dhinacyo badan taabanaya uu bixiyay. waxa uu ku sheegay waan ogahay inuu Neymar doonayo inuu ka tago PSG sababtoo ah Leonardo ayaa albaabada u furay ee wada hadallada. waan ka warqabaa in koox kale ay qayb ka ahayn wada hadallada si ay u helaan Neymar Jr. Barcelona waxa ay qayb ka ahayd kooxahaasi. haddii Neymar suuqa laga heli karo annaga waxa aan isku dayaynaa in aan la saxiixano balse ma saameynin wax ballanqaad ah. haddii ay PSG albaabada u furto wada hadallada annaga waan la hadlaynaa iyaga ayuu yiri madaxweynaha Barcelona. waan ogahay in Neymar uu sheegay PSG in ay kaliya wada hadal la yeeshaan Barca. maamulka kooxda wax walba ayuu qabtay sidii uu Neymar ugu imaan lahaa xagaagan. wargeysyada waaweyn way og yihiin arrintaasi. laacibka waxa uu sheegay wixii uu isaga markaasi qalbiyadiisa ku jiray ayuu yiri. Messi ma uusan i weydiin inaan la soo saxiixdo Neymar balse maamulka ayaa go'aansaday inay la soo wareegaan ciyaaryahanka reer Brazil tan iyo markii ay ogaadeen in laga heli karo suuqa xagaagan balse ma aysan suurtagelin in Neymar la soo xirigeliyo. waa sidoo hadalka u dhigay madaxweynaha kooxda Barcelona Jose Maria Bartomeu. dhanka kale xidigii hore halyeeyigii hore ee kooxaha Manchester United Liverpool Michael Owen ayaa ka aragti dhiibtay khalaasyaha ka dhaxeeya xidigaha islaamka ee Sadio Mane iyo Mohamed Salah. halyeeyga kubadda cagta dalka Ingiriiska Michael Owen ayaa ka aragti dhiibtay khalaasaha u dhaxeeya xidigaha kooxda Liverpool heerka caalami kaga jira bandhiga waxaan sameynaya Mohamed Salah iyo xidiga lagu magacaabo Sadio Mane. xidig reer Senegal ee Sadio Mane ayaa si cad u muujiyay sida uu kaga xanaaqay kadib markii la bedelay inta lagu guda jiray kulankii Burnley. xaasidnimada Mohamed Salah ee mararka qaar iyo waliba in uusan kubadda inta badan u baasin saaxiibadiisa waa wararka lagu soo qaatay wargeysyada. laakiin Michael Owen ayaa sheegay in kalinimada loo baahan yahay koox kastana ay weeryahan soo qaadato si la mid ah xidigaha muslimiinta ah ee ku wada sugan kooxaha Liverpool. waa xidigaha Sadio Mane iyo Mohamed Salah oo maalmihii u dambeeyay soo kala dhex galay khilaaf dhanka kubadaha. waxaan u malaynayaa in ay jirto dheelitirnaan badan ee dhanka weerarka kooxda Liverpool laakiin arrimuhu maalintaasi way sii kaceen ayuu yiri. dhibaatooyinkaasi waxa ay dhacaan marar walba. shaqada Jurgen Klopp ayaa waxa ay tahay in arrimaha la fududeeyo. uma malaynayo in dhibaatada ay sii socon doonto marka xidigaha Mohamed Salah kubadda helo. waxa uu u badan tahay inuu aad ugu warqabo in mararka qaar ay tahay inuu baaso haddii ay jirto fursad fiicanna uu lugtiisa ku dhaliyo. waa sidoo hadalka u dhigay xidigan kubadda cagta ku xeel dheer muddo ballaaranna ku soo dhex jiray. dhanka kale Sanchez ayaa kalsooni ka muujiyay in Barcelona dhagaha ay ku dhufan karaan kulamada ay la ciyaarayaan UEFA Champions League. laacibka reer Chile dhawaangalka ku ah naadiga International Alexis Sanchez oo xagaagan ku biiray naadiga Inter Milan ayaa cadeeyay qaabka ay guul uga gaari karaan kulanka ay Barcelona uga ciyaari doonaan wareegga guruubyada tartanka Champions League xilli ciyaareedkan. Alexis Sanchez ayaa waraysi uu bixiyay shabakada rasmiga ee kooxda Inter Milan waxa uu sheegay waxa aan doonayaa in joogitaankayga halkan aan ku guuleysto koob waa in aan dagaalano oo aan wada joognaa ugu dambeyntii. taasi ayaa ah waxa ugu muhiimsan ee aan u imid halkan. sirta ka dambaysa gaaritaanka yoolalkayga waa midnimada qolka dherbedelashada ayuu yiri Alexis Sanchez. ciyaarta Barcelona waxa ay noqon doontaa mid qaas ah ee awoodayda ciyaareed wax badan ayaanu ku soo guuleystay halkaasi. waxa ay noqon doontaa ciyaar aad u adag laakiin waxa aan dareemayaa kalsooni aan ku ciyaari karo kulankaasi. waan guuleysan karnaa gaar ahaan maadaama aan haysano ciyaartooy awood u leh in ay sidaas sameeyaan.
si kasta ha noqoto laacibka reer Chile Alexis Sanchez ayaa suuqii dhawaa ee xagaagan ugu dhaqaaqay kooxda Internazionale amaba Inter Milano heshiis hal xilli ciyaareed oo amaah kadib markii uu ku dhibtooday kooxda kubadda cagta Manchester United. Habeenkii dambe ayaan soo gaarnay xidigaha Islaamka iyo kuwa Kiristaanka xidigaha kubadda cagta caalamka oo iyagu aad ugu adag diimaha ay haystaan. Dunida kubadda cagta ayaa martigelisay xidiga badan oo aad u badan kuwa oo aaminsan diimo kala duwan sida diinteena quruxda badan ee Islaamka, diinta Masiixiga iyo diimo kale oo ay xidigu kubadda cagta intoodu badan ay aaminsan yihiin. Warbixintan waxaan diiradda ku saari doonaa dhowr arrimood oo saameyn ku leh kubadda cagta oo aad ugu adag diintooda sabab la xiriirta in ay inta badan soo bandhigaan dareen diintooda. waxaana markaa xidigaasi haddii aan soo qaadano ka mid ah Mo Salah oo ah xidig haysta diinta Islaamka iyo Kaka oo isna ah xidig ku adag diinta Masiixiga. Mohamed Salah waxa uu ka mid yahay xidigaha kooxda Liverpool waxa uu inta badan muujiyaa diinta Islaamka. xilliyada uu gool dhaliyo waxa uu u dabaaldegaa in uu madaxiisa dhulka dhigo si uu ugu mahadnaqo Allah maadaama uu yahay xidig Islaama. waxa uu saameyn ballaaran ku lahaa dad badan oo taageerayaal Liverpool ah ama Salah uu sabab u ahaa in dartii ay u soo islaamaan maadaama Salah inta badan uu muujiyo diinta Islaamka. waxa uu ka mid yahay xidigaha ay taageerayaasha Liverpool inta badan ay carabka ku hayaan kuna tashtaan waqtiyada garoonka uu ku jiro. waxa ka mid ah Kaka xidigii hore ee naadiga AC Milan, kooxda Real Madrid iyo xulka qaranka Brazil. Ricardo Kaka waa mid aaminsan diinta Masiixiga. waxa uu muujiyaa xilliyada uu ka qaybgalayo masraxyada sidoo kale xalfadaha qaaska iyo waliba saaxadda kubadda cagta. waa mid aad ugu xeeldheer inuu bandhigo mar walba diintiisa Masiixiga Kiristaanka. waxa uu aaminsan yahay Ciise. waxa uu inta badan markaa uu u dabaaldegayo gool inuu dhaliyo ama markaa uu u dabaaldegayo inuu guuleysto waxa uu wargeysyada hortooda ka sheegaa inuu mar walba aaminsan yahay Ciise oo isagu inta badan ku dhiiran yahay. sidoo kale Frank Bilal Ribri ayaa qayb ka ah xidigaha iyagu Islaamka ah diintoodana ku adag. waxa uu ka mid ahaa xidigii Bayern Munich wacdaraha badan ka dhigay inta uu ku sugnaa. waxa uu saameyn ballaaran ku lahaa naadiga Bayern Munich. waxa uu markaasi kooxda Bayern Munich inta uu ku sugnaa uu muujiyay in uu diinta Islaamka ku adag yahay walow 2006 uu xidigan Islaamnimadu ku soo biray sabab la xiriirta gabadha u dhaxda iyadu ka soo jeeda dalka Algeria. waxa uu xidigan wacad ku maray in uu noqonayo wiil Islaami. waxa uu haatan ka dhowrsadaa in uu ka qayb galo xalfadaha loogu dabaaldegayo khamriga amaba lagu cabayo. waxa uu ka dheeraadaa dabaaldega markii ay kooxdiisa Bayern Munich ku guuleysato koobabka Bundesliga sida Champions League iyo kuwa kale oo koobabka maxalliga ka mid ah. waxa uu ka dheeraadaa xilliyada ciyaartoyda ay ku dabaaldegayaan isku shubidda dhalada khamriga ah. waxa uu inta badan muujiyaa diinta Islaamka. waxa uu xidigan masjid ka dhisay dalka Jarmalka gaar ahaan magaalada Mönchengladbach. waxa uu ka mid yahay xidigaha diintooda inta badan ku adag. Paul Pogba ayaa ka mid ah Zuma iyo sidoo kale ciyaaryahan Mesut Ozil, Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos iyo kuwa kale oo aanan halkan lagu soo koobi karin. inta ayaan ku soo afmeerinaa barnaamijka xogaha xaqiiqda ciyaaraha oo aad kala socoteen channelka Bartamaha May. anigu waxaan ahay Ibrahim Jimuni. haddii ay tahay markii kugu horeysay booqashadaada halkan fadlan subscribe saar, like nagu dhiirigelin mahadsanid tan iyo barnaamijkan kiisa xiga intaan ku kulmayno waxaan idinkaga tagaynaa